السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهتمتين وهابين ما أحد أو سنين أي سوق اللي سو أنا قولي شني اللباتن كي بيش أي نوتها لكن ذات كغار لحية اللباتن كجانوري أي أوتهاي سنة كلبضة كون إيو لحية اللباتن ك مقال كانوا حربا إن ندو كل وذاقه مدحوين ترامب oo saacado ka hor bartiisa True Social-ka qoraalkan ku soo qoray ayaa wuxuu afar qodob hor dhigay gudoomiyaha gobolka Minnesota ee maayarka magaalada Minneapolis haddii ay doonayaan in ciidamada ICE ay isaga baxaan gobolka Minnesota. Waxa uu yiri haddii aad shuruudahan ka soo baxdaan oo dadka aan doonayna nagu soo wareejisaan inaguna gobolka Minnesota waan isaga baxayna. Waxaan ognahay gudoomiyaha gobolka Tim Walz iyo maayarka magaalada Minneapolis Tim Walz inay ku celcelinayeen ilaa iyo markii la dilay gabadhii Renee Good todobadii bishan iyo sidoo kalena shalay oo u dambeysay oo iyadana la dilay ninkii kale cadaanka Alex Brady inay ku celcelinayeen in ciidamada ICE ay isaga baxaan gobolka Minnesota qalalaasahan iyo dhibaatadana aysan istaagaynin ilaa iyo inta ay ka joogayaan. Haddaba madaxweyne Trump qoraalkan ayaa bartiisa True Social-ka uu ku soo qoray afartan qodob oo uu soo socota ayuuna hordhigay gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz iyo maayarka magaalada Minneapolis. Waxa uu leeyahay madaxweyne Trump in waxaan ugu baaqayaa ayuu gudoomiyaha gobolka Tim Walz iyo sidoo kale maayar Frey iyo qof gudoomiye kasta oo dimuqraadi ah iyo maayar kasta oo dimuqraadi ah oo Mareykanka goboladiisa mid kamid ah ku nool in ay si toos ah noola shaqeeyaan oo ay ula shaqeeyaan maamulka aan hogaaminayo si loo dhaqan geliyo sharciyada wadankeena intii ay is adkeyn lahaayeen amaba sidoo kalena ay shidi lahaayeen dab kala qaybsanaan qalalaasa intii ay sameyn lahaayeen waa inay nala shaqeeyaan macnaha waxaan doonayno waa in ay nala qabtaan haddii kalena wuxuu yiri arrintan waa ay sii soconaysaa sida madaxweynaha uu hadalkiisa uu dhigayo marka qodobka koobaad uu leeyahay gudoomiye Walz iyo waxa uu leeyahay mayor Frey waa in ay nagu soo wareejiyaan dhammaanba dambiilayaasha sharci darada ah oo hadda xabsiyadooda ku jira waxa uu leeyahay qof kasta oo dambiilaha oo xabsiyada gobolka Minnesota ku jira gudoomiye Walz iyo mayor Frey ha nagu soo wareejiyaan ilaa hadda qodobka koobaadan ku jira waxa uu sidoo kale uu leeyahay xabsiyada gobolka iyo sidoo kalena jeelalka ay sidoo kale waa in lagu soo wareejiyaa mas'uuliyiinta federaalka ah dadka ku xiran ee dambiilayaasha sidoo kalena dhammaanba iyaguna dambiilayaasha sharci la'aanta ah kuwa iyaguna haysta active warrant oo warranty hadda wali ay taagan kuwa haysta iyo waliba dambiilayaasha iyaguna taariikh dambi leh oo la og yahay waa inay nagu soo wareejiyaan si aan si degdeg ah ugu masaafurin qodobka koobaad waa kaas waxa uu leeyahay dhammaanba dadka dambiilayaasha ee ku jira xabsiyada gobolka iyo waliba jeelalka dambiilayaasha iyaguna sharci la'aanta oo illegalka ah kuwa taariikh dambi leh iyo kuwa warranty active oo hadda taagan leh waa in la ku soo wareejiyaa si aan si degdeg ah aan ugu masaafurin kaasi waa qodobka koobaad qodobka labaad waxa uu leeyahay mas'uuliyiinta gobolka iyo kuwa localka ah sida maayarka ayuu ku wadaa iyo ciidamada law enforcement-ga waa booliska waa in ay ogolaadaan in ay nagu soo wareejiyaan qof kasta oo sharci darro ah oo ay xiraan ciidamada booliska ee localka ah marka qof kasta oo sharci darro ah oo ay xiraan ciidamada boolisku waa inay nagu soo wareejiyaan marka wuxuu leeyahay qof kastoo dambiilaha la xiro boolisku ay xiraan waxaan ognahay hadda booliska gobolka Minnesota iyo ciidamada ICE wada shaqeyn kama dhaxayso maxaa yeelay magaalooyinkaasi waa sanctuary citieska waa gadaal ayaan idinka sharaxi doonaa Trumpna waa uu ka hadlaya qodobka saddexaad waxa uu leeyahay ciidamada boolisku waa in ay naga caawiyaan oo ay caawiyaan ciidamada federaalka sida kuwa ICE in ay ka caawiyaan soo qabashada in gacanta lagu soo dhigo dadka sharci la'aanta ah kuwaasi oo loo haysto in ay dambiye galeen kuwa dambiilayaasha ee sharci la'aanta ciidamada boolisku ha naga caawiyaano marka ay qabtaan ICE ha u wacaano ha u dhiibaano marka waa qodobka saddexaad qodobka afraad waxa uu leeyahay siyaasiyiinta dimuqraadiga ah waa in sidoo kale ay kala shaqeeyaan dowladda federaalka si loo ilaaliyo muwaadiniinta Mareykanka iyo in degdeg wadanka looga saaro dhammaanba dambiilayaasha sharci la'aanta wadankeena ku jooga waxa uu leeyahay qaar kamid ah dimuqraadiyiintu oo sida magaalooyinka Memphis
oo gobolka Tennessee ah caasimada Washington DC sidaasi ayay hore u sameeyeen waxaana ka dhashay in dhammaanba wadooyinka goboladaasi hadda ay ammaan yihiin macnaha waxaa jiro hadda maayarka magaalada Memphis ee gobolka Tennessee waa dimuqraadi waa uu la shaqeeyay maamulka Trump waa ciidamada boolisku way la shaqeynayeen caasimada DC oo sidoo kale maayarkoodu waa dimuqraadi waa nala shaqeeyay marka wuxuu leeyahay sidaas oo kale ayaan ka doonaynaa maayarka magaalada Minneapolis iyo gudoomiyaha gobolka Jacob Frey in ay nala shaqeeyaan iyaguna waxa aan doonaynana ay nala qabtaan markaas kadib hawsheena markaan dhamaysano waan ka baxaynaa gobolka Minnesota laakiin haddii is adkeeyaan oo ciidamada boolisku ay diidaan in ciidamada ICE howlgallada wada iyo kuwa xuduudaha ay la shaqeyn waayaan anaguna wuxuu yiri waan sii joogeynaa marka dhibaatadu waa jugjug meeshaada joog u leeyahay ayaguna lama shaqeynayaan Soomaa anaguna hawsheenan wadanayna ninkii Trump aha marka sidaasi ayuu leeyahay qoraalkiisa isagoo sii wata madaxweyne Trump ayaa sidoo kale waxa uu sheegay waxa intaasi ku daray ayuu yiri waxaan ugu baaqayaa xubnaha Congress-ka inay si degdeg ah ku meel mariyaan sharciyo lagu dhameynayo sanctuary stateska sanctuary states iyo cities ayaa jira inta badan gobolada dimuqraadiga ah waxyaabaha ay sanctuary cities ama states ay yihiin waxay tahay sharci ciidamadoodu lama shaqeeyaan ciidamada federaalka ah markay yimaadaan arrimaha immigrationka kala ma shaqeeyaan sida hadda arrinta Minnesota ka taagan oo kale ciidamada booliska ee gobolka Minnesota lama shaqeynayaan ciidamada ICE oo dadkii intay qabtaan uma dhiibayaan marka waa sanctuary cities sidaas waxay leeyihiin marka dadkii dambiilayaasha kuwa sharcilaanta gobolada dimuqraadiga ayay u carareen oo halkaasi ayay gabaad ka dhiganayaan marka waxay leeyihiin uu leeyahay Congress waa inuu meel mariyaa sharci gabi ahaanba meesha looga saarayo wax sanctuary cities leeyahay hadda gobolada Republicaanka ah waa ay la shaqeeyaan ciidamada ICE waxaa jira sharci la yiraahdo 287G oo ciidamada booliska ay la saxiixdaan ICE oo haddii qof sharci la'aan ama dambiilaha ay qabtaan isla markiiba ay ICE u wacayaan oo ku wareejiyaan marka gobolada dimuqraadiga sidaasi ma ahan marka wuxuu leeyahay Trump Congress-ku sharciga meel mariyo gabi ahaanba sanctuary citieskaasi meesha looga saarayo wuxuuna leeyahay arrintaasi waa waxyaabaha sababaya dhammaanba dhibaatooyinka jiro maxaa yeelay magaalooyinka Mareykanka waxaa loo baahan yahay in ay ammaan ka noqdaan sanctuarieskaas isla markaana ay noqdaan dadka muwaadiniinta kuwa sharciga u hoggaansaman laakiin kuwa dambiilayaasha ee sharciyaanta ah oo jebinaya sharciyada Mareykanka ee sharciyada wadankeena waa in la soo qabtaa marka Trump waxa uu leeyahay dhammaanba codsiyadaasi waxa ay yihiin waxyaabaha sababaya arrintan aqliga saliimkana sidaasi ayuu sheegaya marka waxa uu leeyahay waxa anagu aan dhinaceena bixin doonaa wax kasta oo suuragal ah oo caqabadahaasi looga gudbi karo si Mareykanka mar kale looga dhigo mid aan America great again si looga dhigo halku dhigiisii ah marka waxa uu leeyahay maamulkaygu waxa ay mar kastaba arrintaasi ay u taagan yihiin waana sugaynaa qof kasta oo dimuqraadi ah waan ka sugaynaa in waxa wanaagsan uu sameeyo isla markaana nagala shaqeeyo arrimahan muhiimka ah oo Mareykanka mar kale ammaan looga dhigayo sida waxa uu sheegay dhammaanba qaybaha kala duwan ee wadankeena wuxuu yiri waa inaan si wada jira aan ula shaqeynaa hoggaankeena isla markaana aan ka qayb qaadanaa arrintaasina aan gacan ka geysanaa marka ninkii Trump aha waxa uu leeyahay siyaasiyiinta dimuqraadiga ha nagala shaqeeyaan sidii dambiilayaasha ay og yihiin ama xabsiyada ku jira ama dadka sharci la'aanta oo aan raadinayno way yaqaanaane ha nala shaqeeyaan oo ha noo dhiibaan dadkaasi si inaguna aan u gabagabayno dhibaatooyinkan ka jira gobolada dimuqraadiga sida hadda gobolka Minnesota oo kale laakiin wuxuu yiri haddii iyagu si adkeeyaan oo arrintooda ku adkaystaan anaguna meelna uma socono yiri shaqadeena ayaan wadanaynaa hawsheena ayaan sii wadan doonaa gobolkana waan sii joogi doonaa marka Trump bartiisa Truth Socialka ayuu qoraalkaasi ku soo qoray iyadoo waliba hadda aan ognahay in shutdownkii dawladda ay maalmo kooban ay ka harsiiyeen 3 bisha January bishan aynu ku jirno dawladdu ay xirmaysaa bixayay miisaaniyadeeda ansixiyay ilaa 3 January ayay ku ekayd hadda in maalnimadii Khamiista ahayd aqalka hoose waxay u meel mariyeen miisaaniyadda 7 xubnood ee dimuqraadiga ayaa Republicaanka ku raacay 198 oo Ilhaan Cumar ay ku jirtana waa ay diideen marka sanadka marka loo gudbiyo miisaaniyadda aqalka wakiilada maadaama aqlabiyadda xisbiga Republicaanka ay leeyihiin in aqalka sanadka waxa loo baahan yahay 60 xubnood in lagu meel mariyo xisbiga Republicaanku 53 cod ayay leeyihiin aqalka sanadka dimuqraadiyiintuna 47 marka 7 xubnood oo dimuqraadiya waa inay helaan Republicaanku si miisaaniyaddan loo meel mariyo xubnaha sanadka ee dimuqraadiyiintana
health care-kii caafimaadka Obama care waa kii dhacay December dhamaadkeedii oo dadkii caafimaadka uu ku qaaliyoobay isla markaana haddana arrintan ICE iyo maalgelinteeda ayaa taagan oo xubnihii dimuqraadiyiinta ay ku jiray aqalka sanadka ay leeyihiin wax lacaga wasaaradda amniga gudaha ma siinayno marka waxaa hadda la filayaa in shutdown kale maadaama hadda xilligii u dambeeyey October iyo November 43 maalmood ay dowladda xireen intaasi ka badan may xirnaan doontaa mase qodobada muranku uu ka taagan yahay labada xisbi intay ka heshiiyaan ayaa miisaaniyadda ay dowladda ku shaqaynayso la meel marin doona waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordho aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo